ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay dawladda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed guud iyo dabad na way ku ogtahay mudana gudoomiye inaad tahay ahlu sharaf dabiil wadaniyadeed iyo dareen lagu xisheeyo leen oo huban dux iyo iimaan taas daraadeed annagana waa naga mudan yahay in aan wax walba ku maamuusno maanta marxaladda aan marayno shalay gudoomiyihii golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya baarlamaankiisa sagaalada ahaa waa loo gartay inuu mar kale haddana noqdo gudoomiyaha baarlamaanka tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxqabadkaas aniga Khadiija Maxamed Diiri ahaan waxaan ku jiraa baarlamaankii shanaad laga soo bilaabo 2000 arta iyo maanta oo 2017 aan marayno waa dad waxa aan haysano mas'uulta gasheen la'aantiis xogogaalnimadiisa aqoontiisa diiniyadeed iyo tanmaadi iyo khibradda shaqo ee uu leeyahay wixii dastuur dalkan soo maray diyaar uma nihin inaan ku kalsoonaan weyno wixii aan qorannay diyaar uma nihin in aan ka shaqayno fowdo iyo marin habaabin mooshinka waa la dhigay procedure-ku galay gudoomiyihii sharciyadaas meel mariyaa jooga waxaan jeclahay in lagu kalsoonaado xeer hoosaadkan uu gudoomiyaha mooshinka ka yaallo ugu horreyn isagu saxiixay waa nasiib darro waxay wax u dhimaysaa aqoontiisa waxay wax u dhimaysaa diintiisa waxay wax u dhimaysaa karaamadiisa in uu yiraahdo halkana looga baxay waayo cidi kama noqon karto marka la aqbala kadib ilaa laga geeyo baarlamaanka gudihiisa golaha shacabka dhexdiisa